mudane gudoomiye waxaan hor yaallo akhrinta koowaad ee laba heshiis caalami ah oo labaduba la xiriiro dhaqanka iyo xafididda dhaqanka adduunyada. heshiisyadan mudane gudoomiye sidaad aragtaan waa heshiis qadiim ah midkiisa hore oo adduunyada inta saxiixday muxuu ahaa intaan saxiixin runtii Soomaaliya iyo laba dal oo kale ay yihiin. dulucda heshiiskan caalamiga waxa weeye in la xafido dhaqanka oo adduunyadu si wada jir ay u xafidaan dhaqanka kala duwan ee adduunku uu leeyahay. annaga wadan ahaan aad noo saameynaya waana heshiis saameyntiisu ay tahay saameyn wax ku ool ah waxtarna noo ah khaasatan marka aan ka soo noqonnay duruuf colaadeed oo runtii adag. heshiiskan caalamiga oo aad mudane gudoomiye la socotid baarlamaanka waxa kala gudboon ay tahay inay ama diidaan ama ay qaataan sida adduunyadu u qaadatay laakiin aysan wax ka bedel ka samayn karin. heshiiskan runtii kaalmo weyn ayuu waddankeenu u yahay wuxuuna siinayaa fursad adduunyadu ay dhaqankeenna nala difaacdo. dhaqanka marka leeyahay dhaqanka aan muuqanin waxyaalaha looga jeedo waxaa weeye sida sugaanteenna luqadeenna af soomaaliga dhaqanka iyo hidaha aan leenahay oo yani cayaaraha iyo mataqaanaa sugaanta faraha badan aan leenahay. haddaad fiirisid qof kasta oo Soomaaliya oo maanta hadlaayo waxa uu ku hadlaayo kelimad carabiya iyo kelimad ingiriisa iyo kelimad sawaaxiliya iyo mid hindiya marka laga saaro af Soomaaligii wuu yar yahay. muddadii aan soo jiray mudane gudoomiye waddankeena luqadeenna aad ayay u taabaqaaday iyo dhaqankeenna intaba laakiin colaadii dhacday waxaa nagu dhacay dib u dhac aad u weyn. haddii heshiiskan sida adduunkuba ay u galeen aan annagana qayb uga noqonno waxaan helaynaa fursad aan la kaalmaysanno adduunka in dhaqankeenna dib uu u noolaado kaalintii uu ku lahaanay uu ka galo. dhaqankeenna sidaad ka warqabtaan mudanayaal waa dhaqan runtii soo jireen ah saameynta dhaqamo kale ay ku leeyihiinna ay yar tahay marka laga reebo cunnada oo aad moodid sabankan dambe in aad noo soo galay. haddaan meelo yar idinka tusaaleeyo mudane gudoomiye ka soo qabo maantay xildhibaanada halkan fadhiyo qaar koofiyada qabaa jira koofiya baraada loo yaqaan. koofiya barawaan waxay qaadan jirtay in la sameeyo gabadha Soomaaliyeed ee tosha ay ku qaadan jirtay 3 bil waxaan ka yarayn halkaas koofi inay samayso. laakiin waxaa arkaysaa in maanta China wax laga soo harqaamay oo iyada u eg la soo dhoobay oo harqaan uu bedelay dhaqankeenna aan lahayn oo ahaa tolid. waxaa arkaysaa gabdhaha xildhibaanada aad u og xogtana hayo dhaqanka farshaxanka dahabka. waxaan qabi jirnay suuq caan oo adduunka caanka ah oo la yiraahdo maymanka. suuqa maymanka wuxuu la tarjumi jiray suuqyada adduunka artiga farshaxanka dahabka. waxaan la tarjumi jirnay Spain, Turkiga, India, Oman dadkaasaan la tartami jirnay. maanta maymankii sidiisii u jiraa weli dukaaminka waa furan yihiin laakiin waa faaruq. odayaashii dhaqankaas hayane dukaan faaruq ay dhex fadhiyaan hortoodana dambiilo dahabaa lagu gadaa oo kuwii aan la tartami jirnay laga soo xawilay. dhaqanka laga hadlaayo inaan ceshano waa kaas.
aliindigi meel ka baxay cid sheegi karta lama arko laakiin aliindi u eg oo China laga keenay waa dhooban yahay magaalada waa gadanaa oo ku xashaashna marka dhaqanka aan muuqanin laga hadlaayo waa dhaqanka noocaas dhaqanka muuqda oo conventionkiisu yahay kii 2003 waxaa ka mid a badaheenna waxaa ku jiro khayraad ilaahayna siiyey oo hiddo aan leenahay ah isaga laftirkiisa dhaawaca ku socda madana guddoomiye waxaan hubiyey in labadaas convention oo aad muhiimka u ah xildhibaan walba oo helo oo maanta haysto waxaan ka codsanayaa xildhibaanada inay waqtigooda qaataan oo si fiican isha u soo mariyaan kadibna ay suuro geliyaan in waddankeena oo ka mid noqdo bahda caalamka waxaan si shakhsiya aan rabaa inaan kalsooni ku geliyo xildhibaanada in labadan heshiis iyo laba kaloo soo socoto oo midkood uu yahay mid aad noo taabanayo hantidii aan lahayn ee miisimiyadii wixii yiilay maanta dad ay gacantooda ku jiraan sharciga aan golaha marsiinay laakiin aan weli la qaybin oo haddii ilaah yiraahdo la qaybin doono shirka kan ku xiga haddii mudane guddoomiye aad igu raacdid isaga laftigiisuna wuxuu difaaci doonaa in hantida la qaatay ee dad gacantiis ku jirto la soo celiyo waad la socotaa sitimaankii hore masar waxaa loo soo celiyey alaab laga xaday oo 1000 sano ka maqneed